aan sheegay nooc waxa waaye nooc la dhaho finnail taas hoos waxay ku leedahay flutes gano cortexkii lafta la rabo inay integration la sameeyaan oo dhaqaaq aanan ogolaaneyn taas maya laakiin standard sign nailka oo majority-ga fracture-ada loo isticmaalo ha ahaadaan antegrade-ka femur-ka ama retrograde-ka oo femur-ka ama tibiyada dhammaantood standard sign nailkaas waa la samey karaa laakiin case-ki non-unionka ama delayed unionka oo aan present gareynayo maadaama finnail ay ku jirto humorna uu yahay xalka ugu fiican I think way u raacaysid inuu yahay in ayada intii la bixiyo plate la geliyo bone graft loo sameeyo marka taa kuma dheeraanayo laakiin aad iyo aad baa umahadsantihiin dadaalka aad samayseen Dr. Sayid Hafugaanin su'aalaan qabaa sign nailka intaan ka aqaan ama ka akhriyay wax badan ka aqaan waxa weeyaan waxay leedahay delay and or non union waa waxyaabaha lagu dhaliilay ka mid tahay waxa kale oo lagu dhaliilaa infectionkeedu inuu badan yahay annagana Soomaaliya markaan fiirino hadda infection bukaanku inuu qaado marka loo resistance-ga haysta dhibaatada haysta marka infectionku يعني aad buu dhibaato noogu yahay runtii marka loo eego ummadaha kale marka loo eego laana waxa laga yaabaa bukaanka marka antibiogram loo sameeyo in ay weydaba waxa siisay marka arinta ayada bal intaad experience ahaan adigu ka aragtay noo sheeg annagu og arinta ayada aan si ugu dhiirin karnaa sign nail waa ognahay naftu inay waa ognahay inaan lacag haysan laakiin haddana waxa dhulka inaan isdhig la marno jazakallahu khayr anoo kaftamaayo maadaama biro lacag la'aan aan sheegay waxa laga yaabaa conflict of interest badan inuu dhaco raalli ahaada kaftan waaye bir walbo iyo laf walbo oo la kabo ama ha loo sameeyo conservative treatment ama internal fixation ha loo sameeyo ama external fixation risk way ugu jirtaa non union waa lagu kala badan yahay waxa jira patient factors surgeon factors implant factors so sign nail according to the latest studies oo 2023 dhamaadkeeda soo baxay wadamada ugu badan ee laga sameeyo waxa kamid ah Tanzania Nepal maxaa la dhahaa Kenya Uganda wadamo badan oo East African oo volume ahaan naga badan study hadda journal weyn oo JBJS la dhahay lagu daawacay waxa la ogaaday in marka loo fiiriyo in terms of unionka in terms of infectionka in terms of complicationada implant failure-ka ka imaanayo inay almost la mid yihiin maxaa la dhahaa commercial nailska sign nailka kaligeed mar walba study la sameeynaa waxa jira Soomaa confounding variables waxyaabo kale oo ku saameynaya waxyaabo marka cilmi baarisada la kala saari karin waxay tahay is this patient factor waxa ognahay Africa marka waxyaabaha qaar la sheegayo wallahi infection ka birtan ku badan in Africa ku badan tahay HIV-ga inuu ku badan yahay malnutrition-ka inuu hygiene-ki iyo OT-gi standardska aysan fiicneen marka micnaheedu ma ahan in nailka sababta ay tahay birta I think Dr. Bointi su'aasha inaan ka jawaabo see ugu dhiiran karnaa su'aasheedu waxay ahayd hadii $20 ninka kab dhaqameedka qofkii uu ku kabaayo birtii caadigana $100 ay joogto bukaankiina $200 wax ka yar qoyskiisa bisha ay soo gasho ma annaga ku dhiirigelinayno inuu $20 aado kadibna lugtiyo compartment syndrome iyo complication noo imaado ma solution u raadinayna dhakhtarkan Mareykanka ee 99kii implantigan soo alifay wuxuu ku helay awaadka ugu sareysa ee Mareykanka la bixiyo waxaana lagu siiyay inuu Africa birahaas geeyay annagina loo keenay hadaan utilize gareey weyn oo aan ka faa'iideysan weyn oo aan micnaha waxyaabo kale oo ay noqoto inaan ku dhaleeyno suuragal ma waxaana la jooga oo Uganda ka imaaday shirkana qaybka Dr. Zakariya waxa laga yaabaa inuu daily 3-4-5 nail u arko experience-gayga hadii aniga lacag aan isdifaacay waa jeclaan lahaa inuu ku daro Dr. Zakariya hadii wax tala ku dareysid waxyaabo sign nail limitation ay leedahay according to your experience proximalki inuu ku leeyahay hal dynamic float ah iyo hal static ah distalkana sidaas laakiin expert nailku wuxuu ugu fiican yahay tusaale wuxuu leeyahay different angles oo leeyahay tusaale
wuxuu ku fiican yahay haddii fracture-ka uu yahay more distal tusaale waa shaft distal type waa tusaale standard nail-ka haddaa isticmaashid waxaa laga yaabaa working length-ka oo nail kuu shaqeynaya inuu yaraado laakiin markaas kale waxaan isticmaalnaa expert nail wuxuu ugu duwan yahay angalo badan aad geli kartaa macnaha medialka lateralka anteriorka aad ka geli kartaa laakiin kan caadiga lateralka bas uu soo galaya marka stability uu ku doonaan doonaa marka kan anaga isticmaal marka waa standard nail-ka caadiga iyo expert nail oo ah inuu leeyahay different angles oo stability-ga aad ugu fiican yahay kuna fiican yahay marka fracture-ka more distal yahay marka sign nail-ka waxaan maleynayaa haddaan ku darsado hal su'aal oo aan qabay inaan ka weydiiyo Sayid sign nail-ka waxaa noo sheegtay laba mid arba inaan ka weydiiyo entry point-ga waxaa noo sheegtay inuu yahay medial to GT ana medial to GT okay performance simple nail-ka meesha aan ku arkayo xoogaa wuxuu ahaa a curved nail caadiyan curved nail-kana GT-ga aan isticmaalnaa hadduu straight-ka yahayna performance-ka marka waxaan rabi lahaa in ma asoo curved-ka ahaan entry point-giisa waxaan isticmaalaynaa isla performance entry-ga taas waa hal su'aal su'aasha waxay tahay haddaa rabo retrograde nail inaan isticmaalo sign nail-ka ma jiraa macnaha meelaha qaar waxaa la isticmaalaa retrograde nail caadi ah markaa rabtid inaad ka soo geshid inaad sameyso retrograde inkastoo meelaha qaar anaga xataa waxaan iska isticmaali jirnay nailka caadiga integrate-ka hadday la waayo waa iska taqaana Africa la joogaa asi laftiisaa la isticmaalaa marka ma jiraan nuucyo gooni ah oo loo isticmaali karo retrograde nail-ka base waa isku mid sidii standardka caadiga ah haddii aan rabo inaan anterograde iyo retrograde isticmaalo Dr. Sayid waxaan rajaynayaa la gelinayo aan dhahay case-ka tusaalahan usoo qaadanayay greater trochanterka tibka medial edge oo waxaa la gelinaya greater trochanterka not piriformis fossada waxaa la ogaaday haddii aadan blocking screw iyo C-arm haysan in medial cortex-ka proximal third-ka femur-ka nailiska maxaa la riimarada ay isticmaalaysidna ay yihiin kuwo manual ah oo aanan flexible ahayn oo adag in medialka ay dhaawac gaari karaan just to avoid that iyo virus effect oo proximal third si looga cararo ayaa positionkaasi loo gelinaa proximalka marka la joogo hoos marka laga soo galayo C-arm qofkii hayso Blumenset line-kii caadiga ah uu ka galaa C-arm haddaadan haysan notchkii intertrochlear notchkii meeshii ka koreyso oo BCL-ka ACL-ka insertion-kooda horadeeda correct site-ka oo laga gala taas waa meel walba sambalan ka soo qaatay laakiin 10 daqiiqo ay ugu yaraatay case walba example-ladan ay sheegay way ku jireen raalli ahaad